waxaa maanta xarada qaxootiga dhagaxley oo kamid ah xiriyaha qaxootiga dhaab si weyn loogu dabaaldegaya munaasabada kowda luulyo oo sanadkan ay ku soo aadeysa xilliga gabi ahaanba dawladda Kenya ay sheegtay inay albaabada isku laabiso xiriyaha qaxootiga dhaab iyo Kakuma sanadkan way ka duwan tahay sanadihii hore maadaama sanadkan xalfad aad u weyn loogu qabtay kowda luulyo xiriyaha qaxootiga ee dhaab kowda luulyo ayaa maalin qiimo badan shacabka Soomaaliyeed ku weyn qulubtooda waa maalinta gobolada koonfureed ee dalka ku xiroobeen gumeystii Talyaaniga isla markaana ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfur ee dalka Soomaaliya sanadkii 1960kii muddo haatan waxa laga joogaa 61 sano isla markaasna shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha qaxootiga Dhaab ee gobolka waqooyi bari ay aad ugu dabaaldegeen munaasabada kowda luulyo xalfadan waxa ka soo qayb galeen odo dhaqameed dhalinyaro waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadleen qaar kamid ah dhalinyaradii soo abaabushay munaasabada oo ay kamid yihiin gudoomiyaha ururka dhalinyarada xirada qaxootiga dhagaxley waxayna u cabireen dareenkoodii sida tan waxaan maanta joognaa munaasabada kowda luulyo munaasabadaas oo ka dhaceyso hoolka bulshada oo dhagaxley marka halkaas ayaa maanta ku suganahay xalfadan waxay uga duwan tahay si heer sare ayaa loo soo agaasimay waxa soo agaasimay dhalinyarada maamulkeedu aniga aan ugu horeeyo marka xafladan waqti ay qaadatay waqti ayaan gelinay qarash ayaa la geliyay bulshooyinta dhan ayaa loo bandhigay waqti hore ayaa laga sii warqabay marka laakiin xalfadii hore oo kale ma jirin munaasabad noocan oo kale taa ma jirin marka munaasabadan waa munaasabadii ugu weyneed aniga dareenkayga lama soo koobi karo meel walba marka fiiriso dhalinyarada aad ka qurqurxoon gabdhaha aad ka qurqurxoon dhawanadooda ay ku sawiran yihiin calamada dareenkayga mid la soo koobi karo ma marka waa maalintan xurriyadda qaadanay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joogaa xarada Dhadhaab especially dhagaxley aan joogaa waxa la yiraahdaa Xamdi Maxamed Cali waxaan gudoomisada dhalinyarada ururka dhalinyarada والله فرحتي لما سو كوبي كره because waa arkaysa calamadii ala lulihaya intan oo dadweynaha isku soo banaan baxay oo dhalinyaro zaid u qurux badan gabdhaha aragta saarta u labisan oo calanka ku labisan horta mid ugu koowaad Ilaahay u mahad celinaya mid labaad waxaan u mahad celinaya dhalinyarada meesha soo qaban qaabisay farxadeydana lama soo koobi karo hadii qof Soomaali oo calan Soomaali arkaadin maxaa ka dareemaysa farxad zaid farxadeyda lama soo koobi karo waa 100% زايد إنه قد وانت because وعمالنتي عن قاعدنا حريته سو مركب معلومة كانوا إنه قد وانت because وادريمك كرتا شعورته أنا صغير كبير بو على صوت بحي علن كيلوسا وذا لبستي سو مركز زايد أنا فرح سنة والله ما شاء الله فرحت إذا لما سو كوبي كرمانت زايد إنه قد بدلنت هاي وايو وحي ورا تنتيلا دبل دجال إسكت تجدر لكن ما أنتو إلا وحساس عنا وملايا تاريخ لبعتني اللي إلا ما أنتو تاريخ كويت أنت أساسا دبل دجيني بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتو فرح سنة هاي نحاول دبل دجينا كود لوليو ومالين ما أنت عادنا هو نصدني كوسنا قحوتنا هاي صدنا سنة أولك جيم لكن كوجي وحان درنا إن صومالنا هاي صومالنا دولتنا ما دام دولة كينيا هيدا هذا إن لو يتوان صدنا كتار صدنا بيشلي عاد لو كن لواتي لو وطن كنا نوبها مركب وحان درنا إن صومالنا هاي صومالنا دولتنا ما ترانكي هذا كاسنيا ولي ما أمد دولتنا صومالي ولي ماركن إنه عنده شيء بري بربركي صومالي يسعر لكن صومالي ما قرنا ولي ماركن لكني وعنجعل هذا إن صومالي تبغون نقول وما ترانكي هذا كاسنيا إن صومالي من وطن كي أنكر يسعر عيقو سدحان حالا إن مع حسن راجي درينكي جزائي أم فرح سنة هاي واي على صومالي أنا والله وأنا معلم تحريد عن قاضي كود لوليو سو مركو حالي هاي صومالي دمان هاي سرعة هذا وطن كان النواد ما إلهي أقبريها حسن كافي تلفزيون كعالمي الصومالي كيبل حريها قحوتي قرداب قبل كوقوي بري دالك كينيا